السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا وحنا سو دواada meel boodnina daafeed ka joogtiin si walba is arag maqalkaygu idin soo gaaray caawa xamaasadeysana fiidiyogan like saara saaxiibada nagu cusubna channelka subscribe ha saaraan soo dhawaada kulankii hadda soo dhamaada kooxaha Liverpool iyo Manchester United qaybtii la diiwaangeliyay rikoorada la diiwaangeliyay hal iyo laba ka dhihi doona Manchester United ayaa ku soo dhaweysay garoonkeeda kooxda kubadda cagta Liverpool kulan ku soo dhamaaday 2 gool iyo gool shabaqada waxa soo taabtay Sancho ilaa Rashford Manchester United caawa waxa ay sameysay taariikh ah inaba aanan caadi ahayn ay sameysay Manchester United waa kooxda kaliya ee labadeedii kulan ugu horeysay inta la garaacay Old Trafford ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Liverpool inta naasaha laga garaacay 3 dhibcood laga qaatay still caawa Liverpool Manchester United ayaa ka sareysa oo isbuuci hore la dhahay Liverpool waa koox meeda oo dhimatay oo jalata oo batati macallin Erik ten Hag waa kuma hasantaa Manchester u soo dhistay aan nafta u gelisay waxa idin ka muuqdo neefta idin ka muuqato kubadda raacishadiina 100% ciyaarta markay dhamaatay ilaa markay dhamaatay Manchester United waa ay fiicneed caawa macalinka bedeladiisa ma xumeen shaxda caawa uu ku soo galay Erik ten Hag waxa ka codsanaa kulan walba markuu dheelay 4-3-2 in uu ku soo galo tactikidiisi way fiicneed ciyaartoyda Manchester United kulanka waxay u dheelayaan kulan qadiyad ah kulan dhiig ah ayay u dheelayaan maadaama horyaalka hore la soo dhaafa back to back loo garaacay Manchester United wax walba waxa iiga daran Jordan Sancho kama aadan xishoonin James Milner 37 jirka miyaa 31 jirka kama aadan xishoonin Jordan Sancho waa big player game Chelsea ayuu ku rimaad shabaqada ayuu ka soo taabtay kooxdiisa hore Manchester City ayuu ku rimaad shabaqada ka soo gaaray Liverpool caawa shabaqada ayuu ka soo gaaray wax laga qaban karo Sancho ma jirto Manchester United hambarya idin leeyahay meel walba dunida daafidka joogtaan madaxa ayaan ka dareemay guulsan u qaali ah caawa in aad gaari doontaan guushan labadii kulan oo idinka hore idin soo garaacay waa ku iloobi doontaan anaaba ogba waad u qalanteen caawa inaad guursataan dhan walba adika kaga fiicnaa Liverpool shax ahaanta ay ku soo gasho muxmeen laakiin ciyaartoyda khadka dhexe ayaa waa gaari doonaa Liverpool falanqaynteeda laakiin hadda Manchester United ku jirnaa maxaa Manchester ka caabi Liverpool caawa garoonkeeda inay isas ugu bahdisho harto Manchester United waxay u dheelayeen 11 nin oo isu soo dhaarsata dheelaysay laakiin soo walaalayaalo hal mid miina aragteen caawa aniga waxa imaamadooda aan heesan karin ama man of the match ciyaarta aan sii lahaa dhammaan waxa sii lahaa ciyaartoyda ka dheelaysa qaybta dambe daafaca Lisandro Martinez ninkii ahaa Varane iyo yarkii ahaa isheeg adiga Malaysia absolutely saddexdaas nin way isfahamsan yihiin Harry Maguire dambaha soo safanina Ronaldo-na ha ku soo bilaabaninaha saan ku bilaawda daaficiina saasa idin kugu fadhiya hadda kadib saddexdaas nin way isfahamsan yihiin Mohamed Salah caawa ninkii Dalot garabkiisa saarnaa ma heeno Mohamed Salah iyo Dalot waa sii waay ma fahamteen ninkii ahaa yarkii isheeg Luis Diazna wuxuu galaas biya ka caaway Malaysia leelorto harta muxuu soo gaaraa kubadba ma soo gaareen Mohamed Salah asaga dhanba 9 mar miya camal oo kubadda taabtay alcamuun caawa reer Manchester United guushan ay gaareen way ku qanacsan yihiin meel booduna daafeed ka joogan hambalya idin leenahay Liverpool dhan walba ayaad caawa ka ceebeyseen meel walba ay ka jilcan tahayna dhammaan taageerayaasha Premier League waa atusteen Manchester wax la idinka qaban kara malahan habeenka ay kacsantiin oo saana u badisin waxa wallahi ugu billahi ugu talaay inaan cimaamadiina heesanin waa idinku soo tuura habeenka la idinka badin waa idinka jafa waxna ma isoo dhigi kartiin okay saamahan waa isku raacna taas halkaas aan iska dhigno waxaana dul istaajisan kooxda kubadda cagta Liverpool maxaa ka qaldana harta Liverpool dhaawacyaa igu jiray iyo Fabinho iga maqnaa iyo Alcantara maqnaa iyo xagga iga dhig batatan ba halkaas iga dhig waxa ii soo qabataa Liverpool waxay ku soo gashay shaxdeedii iska caadiga ahayd 4-3-3 laakiin se kooxda kubadda cagta Liverpool barakshar ayaa saarnaa Alexander Arnold iyo Robertson inay garoonka ku jiraan waxa ogaad markaa jaalaha markii la siinayo aan ba Arnold uu garoonka ku jiro ta iyo ba wax uu ahaa ma jirin khadka dhexe ee Liverpoolna waxa waa iska ogeed cunug yar iskaaga jiro kii waa maqnaa dhaawacyaa ku jirin Luis Diaz la wala oo ahaa Liverpool caawa ciyaartoyda dhibcaha ka lumiya waxa ka mid Luis Diaz iyo afwan
xidiga badanaa ka mid ah marka liverpool saan ma ku tartami kartaa 3 kulan premier league dhashay still waxay leedahay guul waad gaari karaan kulamada soo socotana waad guuleysan kartaan laakiin si indhaha idinku haya reer liverpool saan xal ma aha mana lagu tartami karo Philip van Dijk adna maxaa kugu dhacay hadii waxay oo Brexit lagu soo sar dabada leema dhiibay heesaas leema u bixi wala xawla wala quwwata يسر الله العمون ليفربول wax laga sheegay caawo oo ilaahay abuurtay bijirinba min weerar min qadx ila min difaac hal xabo goolo maxamed saalax oo alla ku siiya allaha kaas alla ku siiya allaha liverpool saan kuma tartami karto in badan waayo ay doonta Sadio Mane hadda ani idin kuma diganayo kulankan waa idin garaacay big game waxa waa idin garaac laakiin idin kuma diganayo waxaan idin kugu diganaynaa waxay tahay dhaawacyo idin ku jiro xidigiini 100 milyan ay ka soo bixiseen wuxuu ku maqan yahay wuxuu ku maqan yahay red card ku maqan yahay laba kulan waa kaasi maqnaana West Ham kuugu xigto West Ham laba kulan badinina kuugu sii xigto waliba Manchester West Ham kuugu sii xigtaa ma fahamtay Liverpool qad dhex meesha kuma heeso Alcantara xidig qad dhex ka fiican Liverpool inuu joogin caawa ogaaday absolutely meesha qad dhex Liverpool ay ku heesiin oo ilaahay abuurtay ma jirto alcamuun burhaanti Manchester United way soo laabatay ee Premier League meesha gal lahayn adika lidin ka rabaa ninkii Casemiro ahaa garoonka lagu soo dhaweey ciyaarta teesa dhamaani kor Manchester soo bandhigaysay Casemiro burhaantiisa ma kacday ani ilaa hadda maskaxda dhan walba hada ka shaqeysay oo saas dhaa waa fahmi lahay caawa Manchester waxay u dheeshay wallahi si waxay u dheeshay dhiig iyo dhacaanka iyo dhuuxa u dheesheen in aan mar walba saas u dheeshaan oo dhiigiin aad hortaan maxaa idin diidaayo kulamada waaweyn Man City Chelsea Liverpool marka la leeleysiin saa u leelay ilmaha idin garaacan dhibcahan caawa aad qaadateen waa u baahnedeen still Liverpool iyo Manchester United caawa Manchester United asarayso 3 dhibcood ay leedahay Chelsea 2 dhibcood Liverpool 2 dhibcood ay leedahay Citizen fans hadii barbaraxal la galiyo isbuuc mucjisadiisa iyo wareerkiisa wato ahaa Chelsea ayadana Liverpool waa la garaacay Chelsea waa la garaacay ما سبر ما هاد علسة وحدي جرى بس ما سبر أيضا بربرة وحياة كتوقتين يوكاست هاد مركو ريال كامل كلا جرى مالها كوحدة كليو سب برفكتئة أو برفكتي كبلاوته وكوحدة كبت عكت أرسنال استيل هو جامياش ريال كبريمير ليج أي كأ ريال مانشستر يونايتد عاو عمام الدين واسكسو طورة عمام الدين اسكسو طورة ريال ليفربول وحقا إذين هاي مالهن سيديو ماني حتى لوز دياسة دو إذين صلابت وتبي دونتان سيديو ماني قالت كاكو درتين واد أركي دونتان انتو سوقا فرون يهينا قد دح دونتا ورهوي قد دح دونتا ورميشان قد دح كميسين جوغ ليفربول ميشان قد دحا بابا اكتين واكا اومنتين وانا كأدرنتين واينا دونتان قد دحي هالكاس ugu gudubno kulankii Manchester United iyo Liverpool kulankaas waa kulan iska big game ah saaxiibayaal ilaa gabagabada muuqaalka hadda inala soo gaarteen waxaad ku codsanaa dhamaantiin si isku duubni inaad videoga like u saartaan siina share gareeya si saaxiibo wanaagsan noogu imaadaan see you again another time